golaha shacabka xildhibaanada xasaanada leh ee la soo doortay waxa loo soo doortay midnimada ummadda Soomaaliyeed waxa loo soo doortay maqaamka iyo sharafta iyo hay'adda ugu sarreysa dawladda inay tahay dejinta inay ixtiraamaan halkan qofka xildhibaanka soo istaagayay waxa laga yaabaa hadalka aad leedahay marka aad ku hadlayso inaad u aragto inuu kula yaryahay laakiin marka uu kaa gudbo aanad xakameyn karaynin waxa la yidhi daanyeerow qaraabka ka war wuxuu tunkay iyo tabageeya ka eg macnihii tunkuna waa halka sare tabaguna waa labada qabcood waxa weeyaan inagu sidiisa banaanba waxaynu ku nool nahay awsaarkeena wala keena waa deeqo inagula deeqo gobolka banaadir masti waxay naga soo galay 300 milyan adiga xildhibaanka halka fadhiya $5,000 baad qaadataa December baad ku dacwoonaysaa halay kordhiyo sidaasaa tabashadaadu ay 24 hours tahay iguma filna dhaqaalahay gaadiidkayga iyo gurigayga iyo ciidanka ilaalinaya meelaha tagtaan wadamada tagtaan ay ugu horeyso Turki meelaha u tagtaan dhakhaatiirta iyo inaad ku soo nasataan dad idinkoo kala aaba go'aan intii gaarin masiirkooda u fariista baakinka gaariga aad u dhigtaay qofka Istanbul ku nool ama Turkiga ku nool waxa laga qaataa waxa weeyaan cashuurta oo la bixiyay waa dad iyo dal la dhisay qaabka cashuurta loo bixinayo aniguna waxay noqonaysaa cashuurta muwaadinka laga qaadaa waxba loogu qabanaya message boontiga kala dhexdiisa taagan baa wax lagu siinaya waxa weeyaan waxa sidiisa banaanba maqaldan waa ilaah dawladnimadu oo qorisku dib shalay toole madaxweynuhu hore Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Farmaajo baa qurbi ku wareejiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta jooga Xasan Sheekh Maxamed wuxuu ugu wareejiyay hay'adkii dawladnimo wixii bisaadkii sharciga yaalay inuu halkaas u ka sii abaqaado waxa weeyaan dawladdu waxba ka qaldami karaa boqol dawladdu ma saxsanaanayso adigoo insaanaaba boqol aan saxsanaan karin dawladda eedeynaha loo soo jiidinay ama daliilaha la sheegayo waxay ka jawaabi weydiga mise waxay ka jawaabayso arrinta maanta taagan aynu u taaganahay walow dhammaantood inta ugu dambeynta laga wada jawaabo ee ugu horeeyo dhalinyarada ka cabanaysa bajaajta ee aan weliba u garwaaqsanayo inanka yara jaamacad hooyadii ay ugudiisay ay kaga bixisay ee bajaaj ugu soo iibisay la dhibaataynayo dawladdu miyay ku eegtay mise ka joogtay waa ka jawaabtay waana ugu hambalyeynayna tan cashuurta jubbaland la sheegay ma laga joogay lagama joogin ninkii wadanka ugu sareeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu soo istaagay shiishadii loo dintaabtay waxa jiro dhammaantood wasiirka maaliyadda soo istaagay halkan shiishadii uu jawaabay wax kastana wuxuu inoogu ifiyay sidii wax u jira wuxuu qirtay in cashuurihii laga qaaday jubbaland yaalay oo dhan in la rabo in la xaliyo laga hadlo xildhibaanku wuxuu ku fadhiyaa waa cod shacab wuxuu uu wakiil ka yahay shacabka banaanka jooga inuu codkiisa soo gaarsiiyo inta markaan kaga imaado waxaan rabaa waxaad moodaa inaynan fahamkeennii xildhibaanimo aynu nagu yar tahay qof waliba halkan soo istaagay waxaad xildhibaan u tahay waa ummad Soomaaliyeed midintooda inaynu maanta muran aynu ku galno gobolka banaadir anaa iskale iyo anigaa shalay iyo muddo iyo anigaa maxay leeyahay ceebta kugu tahay luqadaha noocaas inaad ku hadashaa anigaa xildhibaan waa gobolka banaadir dhibtiisu anay idhiyaysaa karaamkii ee 140 suuradood markii la igu dhaarinayay ayay igu fulan dib orta intaas ay fulan oo Ilaahay ugu xisaabtamaya ninkan xildhibaanka caawa u yahay hadduu caawa gaajo ku baqtiyo anigu Ilaahay qiyaamaha weydiinaya haddii garaadkaagu intaas uu ku siinayna qabyaalada ay ku wato ceeb ku tahay qarannimada iyo qadiyada aad ku doonaysaa wuu wasiirada hal kalaam baan kula hadlaya xukuumadda dan qaran ee subaxa hore safafka hore kuraasta soo fadhiisanaysa waxa la idin ka rabaa halka markaad soo istaagaysaa eedeymaha la jeedinayo dhan inaad ka jawaabtaan maaha tunka maaha taraga inaad ka sheekaysaan aad bay idinku tahay xildhibaan wasiir waxa laga rabaa inaad qanciso xukuumadda aragtida systemka jira baad wakiil ka tahay wakiil ka mid tihid inaad subaxa hore
وأنا إني دوام فرست لقى مرة هنا مركب ربطنا مقطعة وتتكون هذا شيء عبد كوبتها دولة النمو وبلارت هي معانتها دولة النمو أنا نافع عيسى دولة بان ربنا دولة بان ربنا أنا قام كل ما أنت أول بارلمان كويدا جهدي سماها جهد دولة النمو حوالي المدينة في جرابي من عيتو هالنقل دحال أوريد كذا دحال شبه النقل وحي شرط لي هذا الجرني هو أنا بتوع أمانتي الفاد معني هذا وحي شرط لي أنا نفسها سنين ما هي معنيه وحنا نكبر من 10 شلي وحكي السنة قلدم هدية قلدم شلي هدينا نكبر من واحد صوصة واحد الله حين قانا وجهت مركز هم ليس أقامت هذا هم وقته مركز هم ليس أخلاقه هذا هم وقته مركز هم ليس مزيد هذا هم وقته قبيالة مقسم القبيلة الوحيد مسمى أنا لسوي لي أنا عب تاعي قبل كبنادي مقام كيسة نجلس سويا إن نقص صار له حرر يشرع يدستور كذا نجلس سويا المقام كنا نجلس سويا إن أين ساعة دوما أين هذا شرحنا لها الله يا بشديدة شعب كذا قبل كبنادي كله شعب واحد الله يحدثي واحد في المدة الصومالية عاصمة ذاتي قبل كبنادي دكتة حمر ليك كلا سو دغا ليك دكتة حمر wax kala soo dagaa tabarbaru kala soo dagaa toosaasu kala soo dagaa kismaayo kala soo dagaa waxa weeyaan bixi cashuurta sidalka iyo dadkana waa u dhismaan maanta dadka shabaab lagu xoreeyo dhamaantood yaa ka hadlay ajidaha muushinada inaga la kala soo cararnay ee ku wada caroonayne yaa intuu soo careeyay noloshooda lagu xoreeyo caafimaadka ma la geeyay waxbarasho ma la geeyay saldhig ma la geeyay ciidanka rafaadka iyo dhibka ku maraay yaa maalin ka hadlay in dhaqaalaha loo kordhiyo in darajooyinka loo dallacay yaa daba socda war qabiilkan aad dadka aad si ka gilgilinaysan ee meelna aan haysan adigu waxaad kaliya warba safad ku soo gashay waa sax deegaankaaga inaad hadashaa waa sax deegaankaaga lagu xadgudbay inaad hadashaa laakiin macnaheedu ma hayna dul samayso aniga hadal waxaan idinku gabagabeynayaa hebel baa shalay toolo dalkan iyo dadkan xoreeyay 9 bilood adigoo kale waa 9kaaga bilood ee aad ku dhalatay ayuu sidoo ku dhashay adigoo dhaxal reebi kara ha noqon dhaxal suge intaas ay kala dardaarmaya qabyaalada baarlamaanka damaanka looga aado damaankana looga sheekay qabyaalada halka qabyaalad maaha waxay noo ballanaa gobolka banaadir xuquuqdiisa halka laga soo saaray oo uu noqday astaanka astaansan dhammaan maamulada kale oo dhan oo ka macna badan intaas ay noo ballanaa aad ay salaameen